kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Muuqaalkan waxaa si toos ugu daawanaysaa YouTube-ka channelka Barca 252 iyo page-ka Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali Fans. Soo dhawaada saaxiibayaal. haddii aan ku bilowno barnaamijkeena caawa waxaan ugu hadli doonaa wararka kooxda kubadda cagta Barcelona. Xidiga kooxda Barcelona Leo Messi ayaa go'aansaday inuu sii joogo kooxda Barcelona xilli ciyaareedka dambe kadib markii uu horantii dalbaday inuu iskaga tago kooxda Barca, laakiin Barcelona ayaa la filayaa inay iskaga tagaan xidiga badan ee kooxda koowaad xilli ay haataba dhamaystirtay saxiixa xidiga khadka dhexe ee Pjanic. sidoo kale Barcelona ayaa la xiriirinayaa xidigaha reer Holland Depay iyo Wijnaldum kuwaasoo la sheegayo inay ku dhow yihiin inay ku biiraan kooxda reer Catalonia kadib go'aankii Leo Messi. saxafiga Gob Moroti ayaa saadaaliyay sida ay noqon doonto shaxda Barcelona xilli ciyaareedka dambe. dhanka guusha waxaa loo soo qaatay goolaha reer Jarmal Marc-Andre ter Stegen, afarta daafac waa Semedo, Lenglet, Pique iyo Jordi Alba. khadka dhexe Jorginho, Wijnaldum, Pjanic, Tijongi. weerarka waa Messi, Depay iyo Anthony Griezmann. waa shaxda laga yaabo xilli ciyaareedka dambe 2020 iyo 2021 ay noqon doonto kooxda kubadda cagta Barcelona. wargeyska Marca ayaa shaaca ka qaaday go'aankii ee Barcelona iyo weliba tababaraha kooxda koowaad ee Ronald Koeman ee ka gaareen mustaqbalka xidig reer Brazil ee Philippe Coutinho. Philippe Coutinho ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Barcelona kadib markii uu soo dhammaystiray heshiiskii amaahda oo kula joogay kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich. xidig reer Brazil ayaa soo jaray fasaxii xagaaga si uu waqti hore tababarka ula bilowdo kooxda ka hor xilli ciyaareedka cusub. isla wargeyska ayaa sheegaya in maamulka Barcelona iyo Ronald Koeman ay si rasmi ah u go'aamiyeen in xidiga uu sii joogi doono xilli ciyaareedka cusub. tababare Koeman ayaa la sheegayaa in uu diyaar u yahay in xidig khadka dhexe uu ka ciyaarsiiyo khadka dhexe, laakiin uunan ka ciyaarsiin garabka weerarka sidii uu sameeyay tababarihii hore ee kooxda Barcelona Ernesto Valverde. kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay u dhaqaaqdo saxiixa xidigeedii hore Thiago Alcantara suuqa xagaagan, laakiin tababaraha cusub kooxda Ronald Koeman ayay kaga dhigan tahay xidiga khadka dhexe kooxda Liverpool Jorginho Wijnaldum. kubad sameeyaha kooxda Bayern Munich iyo xulka Spain Thiago Alcantara ayaa haatan gudanaya waajibka xulka qarankiisa oo hal sano ugu harsan tahay heshiiskiisa Bayern, waxaana si weyn loo xiriirinayaa kooxda Liverpool. laakiin Barcelona oo ah kooxda akademiyada oo ka soo baxay kana tagay sanadkii 2013 ayaa doonayso inay ku soo celiso kooxda, laakiin Koeman ayaa doonaya xidig reer Holland Jorginho Wijnaldum sida uu sheegaya wargeyska Mundo Deportivo. heshiiska Jorginho Wijnaldum ee Liverpool ayaa sidoo kale dhici doono xagaaga dambe, waxayna kooxda ku heli kartaa saxiixiisa 22 milyan oo euro. daayarka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain Ansu Fati ayaa halkiisa ka sii waday inuu magaciisa ku qoro taariikhda kubadda cagta Spain kadib markii uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay xulka waaweynka Spain. tababare Luis Enrique ayaa go'aan ka gaaray inuu Ansu Fati oo 17 sano jir ah shaxdiisa kusoo bilaabay kulanka Nation League ee dhexmaraya xulalka Spain iyo Ukraine. Ansu Fati ayaa taariikh aan abad laga soo diiwaangelin xulka qaranka Spain wuxuu gaaray goolka uu dhaliyay Ukraine isagoo taariikh gaaray 32 daqiiqo kaliya markii uu ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay Spain. Ansu Fati oo xilli ciyaareedkii dhamaaday rikoor la yaab leh kasoo sameeyay kooxda koowaad ee Barcelona ayaa markan noqday xidigii abid ugu da'yaray xulka qaranka waaweynka Spain gool u dhaliyay. Ansu Fati ayaa goolkiisii ugu horeeyay xulka qaranka Spain dhaliyay daqiiqadii 32 ee kulanka Ukraine. Fati ayaa gool qurux badan ku bilowday kulankiisii ugu horeeyay oo u ciyaaray kooxda seniorka Spain, waxaana hal habeen labada diiwaangeliyay asagoo bilaabashadiisii ugu horeeyay goolkiisii ugu horeeyay iyo kulankiisii ugu horeeyay kooxda waaweynka Spain. Luis Enrique oo caan ku ah inuu fursad siiyo ciyaartooyda da'yarta ah ayaa Fati ku bilowday kulankii Ukraine, waxaana loo arkaa inuu ka mid noqon doono xidigaha ugu muhiimsan ee Enrique mustaqbalka ku xisaabtami doono. si kastaba ha ahaatee Ansu Fati ayaa taariikhda xidigii abad ugu da'yaray xulka Spain gool ka dhaliyay wuxuu gaaray 17 sanadood
iyo 311 maalmood oo kaliya. gudihii gunaanadkii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay saaxiibayaal. muuqaalkan waxaad kala socoteen youtube-ka channelka Barca 252 iyo page-ka Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali Fans. qodobada aan ku soo qaadanay aragtidaada waad ka soo dhiibi kartaa waxay kula tahay. intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.